carruurtani ayaa ah qaxooti Soomaaliyeed oo guriga kaligood looga tagay lagana xiray lugaha si aysan isku dhibaateen ama aysan u dhumin maadaama aysan la joogin qof weyn oo xanaanaysa. hooyadood Muna waa hooyo garoob ah, waa adeegto guryaha nadiifiso. أنا وحنا والبا قال ونتان كوران كينيس حريركو كيني قال مرنا أهله مرنا وين هذا عم بحيتا مسوي هلا السوق kumanaan Soomaali ah ayaa xaalado dhibaataysan ku soo wajahda dalka Yemen sida ay sheegeen dadka u dooda xuquuqda aadanaha. markii ay soo gaaraan dalka Yemen ayaa waxaa loo aqoonsadaa qaxooti waxaana ay dhawaan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR diiwaan gelisay 88,000 oo qaxooti ah laakiin waxaa lagu sheegaa inay gaarayaan qaxootiga rasmiga ah 200,000 qaxootigan Soomaaliyeed ayaa dalkoodii ka soo barakacay tan iyo 1991 waxayna maanta marayaan heerkii ugu darnaa ee nololeed. caasimadda qadiimka ah ee Sanca ayaa waxay la circiiraysaa qaxooti Soomaaliyeed oo halkan ugu jiro nolosha adag ee ka jirta dalka Yemen. dadka Yemeniyiinta ah ayaa waxa ay ka qabaan aragtiyo kala duwan oo ku aadan qaxootiga Soomaaliyeed ee u soo tahriibay dalkooda. marka ay soo gaaraan xeebaha Yemen ayuu bilowdaa rafaadkooda iyo marka ay soo galaan magaalada si xun ayaa loola dhaqmaa Soomaalida. marka loo eego Yementa lacag yar ayay ku shaqeeyaan, waxay caseeyaan kobaha, waxayna dhaqaan baabuurta iyadoo lagu cunsuriyay midabkooda. inkastoo shaqaalaha bini'aadanimada aaminsan yihiin in Yemen ka mid tahay dalalka ugu faqiirsan bariga dhexe, haddana waxa ay leedahay Yemen dawlad waxna ka qaban karta arrimaha qaxootiga. dadka Yemeniyiinta qudhooda ayay dhibaato ka haysataa helidda shaqooyinka, helidda daryeel caafimaad iyo waxbarasho. wayna ka siman yihiin Yemeniyiinta arrimahan, waana qodobo muhiim ah oo dawladda Yemen hor yaallo budget gaar ahna u samayn doonto. waddooyinka Sanca ayaa waxaa lagula kulmay dadka deegaanka, waxayna sheegeen in qaxootiga aysan waxba soo kordhin oo aan ka ahayn dhibaato. waxaa la hubaa in dadka Soomaalida inoo keeneen cudurro waxyeeleeyay bulshada Yemeniyiinta. qaxootigan waddanka waxay u keeneen xaalado xun dhanka dhaqaalaha, dhallinyaradani way saameeyeen. hay'adda UNHCR ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la hubsado la qabsiga qaxootiga dalkan, ayna tahay fursad muhiim ah in lagu caawiyo arrintaas. haddii uu jiri lahaa dakhli soo galo 50 ilaa 60% ama shaqooyin waa la kabi karaa noloshooda inta ka harsan. hay'adda qaxootiga ayaa waxay u sheegtaa Soomaalidan inay isdiiwaan geliyaan si ay u helaan caawinaad yar. xaruntan Sanca ayaa waxay dhiibtaa daawooyin aan sii badnayn, waxayna ku caawisaa qaxootiga dhanka sharciga, waxaana soo abaabulay NGO waddani ah iyo hay'adda UNHCR. dhibaatooyinka soo wajaha Soomaalida Yemen ayaa waxay ka mid noqdeen nolol maalmeedka caadiga ah. haddaba haweenaydan Soomaaliyeed waxa ay sheegaysaa inay ku soo duuleen dariskeeda Yementa ah sida ay sheegeen saraakiisha xafiiskan. haweenaydan ayaa waxaa laga soo riday uur ilmo yar, waxaana la siiyey gargaar xagga sharciga ah si loogu dhiso dacwadeeda maxkamadeed. waxaa jira kuwa kale oo aan helin gargaar sida Muuse iyo wiilkiisa 7 jirka ah. waxay ku nool yihiin duruufo iyo gaajo qararka jidka Sanca. Muuse waa xaaslaawe, asiga iyo wiilkiisa waxay ku nool yihiin noloshan adag muddo sanad iyo bar ah. inkastoo rafaadkaas uu ku nool yahay Muuse, haddana waxa uu ku dadaalaa inuu baro wiilkiisa sida wax loo qoro loona akhriyo. waxa uu yidhi Muuse wax ma dalbano oon ahayn inaan tuugsado. Muuse ayaa muujinaya nabarrada iyo jirdilka ay ku dhigeen dukaanleyda Yemen asigoo tuugsanayo. sida aad u jeedaan, Muuse waa uu iska fadhiistay, waxa uuna dhabta saartay cunugiisa
waxa uu sugayaa ciddii ilaahay wuxuu u soo dhiibaa ee siisa cunno uu ku noolaado